waxaan maanta inta u joognaa qatanka quraanka tafsiirkiisa محمد وابن مالك أحمد رب الله خير مالك. معهد إيمان ومid ka mid ah xarumaha diinta ee hormuudka ah barashada culumta shareecada islaamka luqadda carabiga iyo funuunta kale ee diinta kuwaas oo lagu barbaariyo jiil ku dhisan aqoon akhlaaq iyo faham sax ah oo ku salaysan kitaabka alle iyo sunnada rasuulka waxaana macahadu iimaan si rasmi ah loogu soo gabagabeeyey khatimidda tafsiirka qur-aanka kariimka munaasabad qiimo badan oo muujinaysa dadaalka joogtada ah ee macallimiinta iyo ardayda isla markaana caddayn u ahayd kaalinta weyn ee macadku uu ku leeyahay faafinta diinta islaamka xafladda khatimidda tafsiirka qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday gudaha macahadu iimaan ee degmada doolow ee gobolka gedo waxaana ka soo qaybgalay culimowdiin waalidiin macallimiin arday iyo marti sharaf kale oo ka kala socotay qaybaha kala duwan ee bulshada intii ay xafladda socotay culimmadii ka hadashay ayaa si qoto dheer uga warbixiyey fadliga iyo muhiimadda barashada tafsiirka qur-aanka iyagoo ku bogaadiyey ardayda dadaalkii ay muujiyeen kuna dhiirigeliyey inay sii wadaan barashada cilmiga diinta iyo ku dhaqanka qur-aanka kariimka awalan waxaan u mahadcelinayaa ilaahay subxaanahu watacaala ثانيا waxaan mahad badan u celinayaa culimmadii iyo mashaaikhdii meesha nagala soo qayb gashay oo ugu horeeya sheekhanaga sheekh alfaadil sheekh mahad iyo dhammaan culimmadii kaloo la socotaan u mahad celinayaa insha allahu tacaala wax walbaba waxbaa ka horeeyo waxaan maanta inta u joognaa qatanka qur-aanka tafsiirkiisa oo insha allahu tacaala uu noo khatimi doono sheekhanaga sheekh alfaadil sheekh mahad insha allahu ka bacdina marka intaa dhammaatana bandhigii iyo xafladii kale ayaan u gudbaynaa sidoo kale waxaa jira tafsiirkan qur-aanka oo meesha ku dhammaaday asaga naftirkiisa inay bal culummada ay wax ka yaraar arkaan ardada insha allahu waxaan hadda ku horumaraynaa oo ku bilaabaynaa khudbo carabi ah oo ku saabsan kitaabka qur-aanka iyo tafsiirka xaggiisa ku saabsan baan ku hormari doonaa insha allahu khudbadaasna waxaa noo akrin doono cabdulqaadir macalin cuthmaan falyatafadal. الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل الكتاب هدى ونورا وتبيانا لكل شيء فجعل فيه شفاء للصدور وحياة للقلوب ورفعة للأمم أحمده سبحانه وتعالى حمد الشاكرين وأثني عليه ثناء العارفين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنير القبور وتثقل الميزان وتبلغ رضوانه وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وقائد الغر المحجلين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، يا أهل القرآن والعلم والبيان، إن هذا اليوم يوم من أيام الله ومشهد من مشاهد الفضل والمنة، ونقف فيه وقفة شكر واعتراف إذ من الله علينا بختم تفسير كتابه العزيز كلامه القديم وحبله المتين وصراطه المستقيم. لقد جلسنا إلى تفسير القرآن الكريم لا جلسة التلاوة بل جلسة الفهم، ونغوص في بحار معانيه فبان لنا أنه كتاب هداية لا كتاب حكاية، ومنهج حياة لا مجرد تلاوة. خاطب العقول فأقنعها، وحرك القلوب فأيقظها، ورب النفوس فزكاها، وأقام الموازين فعدلها. أيها الإخوة الكرام، إن ختم تفسير القرآن الكريم ليس نهاية الطريق بل بداية العهد مع القرآن، بداية العمل بما علمنا وتحكيم ما فهمنا، وتحويل الآيات من صدور تتلى إلى سلوك آخر، لأن القرآن لا يشكو قلة القراء وإنما يشكو قلة العاملين به. taasna waxay ahayd khudbo ku saabsan oo ka hadlaysay
tafsiirka qur-aanka ah iyo dhammaan culumada nadan u mahadcelinaysay ilaahayna jirkooda hafadiyo subxaanahu watacaala. insha allahu tacaala intaa kabacdi waxaan usoo gudbaynaa ardada macna ka mid ah inay wax yaroo tafsiirka qur-aanka ka mid ah ay laqeeyaan halkaasoo looga dhegeysto hadduu ilaahay yidhaahdo. waan soo kokoobi doonaa waqtiga iska kulul iyo meeshaan ku jirnoo kulul iyo intaasoo waan soo dari doonaa intan ugu tartamay inta gaalaan samayn doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo. waxaan u yeerayaa marka koowaad oo tafsiirka qur-aanka noo tafsiirin doono أحمد عبدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه الله أعلم بمراده بذلك ما أنزلنا ما نسودجن عليك كركا غني محمد القرآن قرآنك لتشقى إن كل ما نسودجن إلا تذكرة لكن أنزلناه ونسودجن قرآنك تذكرا وانا لمن يكون سوى يخشى إلهك بغي تنزيلا سودجيا ومن من دون حق سكاعة خلق أبوري الأرض أرض أبوري والسماوات السماوات كالعلى سري الرحمن هو إله الرحمن والله الرحمن كاوي على العرش عرش استوى كهذه استواء يليق بجلاله له لله يؤصلنا وما في السماوات وحا كسبا وما في الأرض أرض وحا كسبا وما بينهما وحا دحيو مخلوقاتك وما تحت ثرى عرض وسيا كسبا وإن تجهر هديها لجهرت بالقول قولك هديها لجهرت فإنه ألا يعلم الذي يوليها السر وحا سرك ويوليها وأخفى وحا قرصون. بسم الله. للذين كوا waxaa u sugnaaday axsanuu ixsaanka laga helay oo iimaanka laga helay alxusnaa mid wanaagga badneed oo jannada ahayd iyo ziyaadatun dheeraad ayaa u ahaaday. ziyaadadaasna waxaa weeye in ilaahay ay arkayaan subxaanahu wa tacaala sida xadiidka ku sugnaatay walaa yarhaqu ma daboolayo weye wujuuhahum wajiyaalkooda khatarun madow walaa dillatun dullina ma daboolayo weeye. أولئك كواس وصفات كاس لجهل أصحاب الجنة جنة أصحاب تيروي هم أيضا فيها جنة تحيي خالدون كواريان والذين وللذين كوين وحاوسنا كسبوا كسبه السيئات حمها جزاء سيئة حماء والمريت وإياء وحاء وبمثلها لغة المرين تعلق بها ومن حقوق ففاهمنا تركة حق اللغة وحال لذا هي تركة ما يتركه المتوفي من مال أو حق أو اختصاص بالإدراك. بركة تركة حوالي أنت على دحلين كورتين حيوي حجر حقوق أو تعلقها هاي مثل كورد وحاول الحق المتعلق بعين التركة وحق تعلقه عين التركة اللي تري سيدك الزكاة والرهن وكمله. مد الله وحاول مؤنث التجهيز وهو حيوي ميت وهو بهي هاي حواليه اللي تري سيدي كفنتي وحلا مده. مدة سدحاد وحاوي الديون المتعلقة بالذمة والديون يديوك تعلقية ذمديس سيدك الحج وديون العباد. مدة أفراد وحاوي الوصية بالثلث فأقل لأجنبي ثلث وحدة شقيقة وحيقاداني نس واقتضى اللي أمك أهنا وحيقاداني السدس يا نس وحاكر حياة تداخل ويسكت قلي oo nis iyo sudus waxaa ka dhaxeeya tadaakhul masalada waxaan ku dhisaynaa lixan ku dhisaynaa lix niskeeda waxaa qaadanay ukhtada shaqiiqada lix niskeeda waa saddexdaas waxaa qaadanay gabadhii shaqiiqada ahayd oo meydka dhintay lahooyada iyo la aabaha ahayd. أقتضى لأمنا وحي قادنا السدس لحنا وحا السدس هل كاس وحا قادنا قولي لوا نوصو هاري لوا نوصو هاري وحا جوغو لوا ولال إيو أقتضى لأب لوا ولال إيو أقتضى لأب كا وحي أقل قادنا للذكري مثل حديث الأنثيين وما قيب سمان لوا وما قيب سنتا
maxaa yeelay wiilasha waxaa laga soo qaaday gabadha laba jabbaarkeeda oo uma qaybsan waxaa dhahaynaa madax adadooruustoodaa tirinayna. majliskani soo xaadirna ayaan ugu mahad celinaynaa. runtii majliskani waa majlis qaali ah iyo majaalista sidaan oo kaleeta waa majlis الqur'aan wa majlis الcilm wاlأkhlaaq. waa majlis aada iyo aada u sharaf badan oo majliskii kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu aqriyayay lafdigiisii iyo macnihiisiba. waa majlis ay ka socoto tacaaliimta sharciyada ee kala duwan, maadooyinka iyo funuunta diiniga ah. wax badanna horay xaflado sidaan oo kale ah waan ka soo qayb qaadanay oo hadda kow nooba ahaa. kuwo la mid ah oo sidan kasii ballaaranna waan rajaynaynaa insha allahu inay inoo sii socdaan. waktiga iyo waxaa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu inoo siiyey inaanu khayraadkan aan wadaagnana waa mid aada iyo aad aan ilaahay uga mahad celinayno, waana ku faraxsannahay dhammaanteennaba. ka qayb qaadashada majliskan aan kasoo qayb qaadanay waanu ku faraxsannahay. khusuusan kitaabka ilaahay khatimkiisi baanu aada ugu faraxsannahay oo meesha ku dhammaaday. raxmadu fara badan ayaa soo degaysa meesha kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu akhrinayo iyo halkuu ku dhammaadayba. weliba kitaabka qur-aanka dee alfaadiisii in la fasiraayo macaani oo mucjizadii nabiga la siiyey sala allahu calayhi wasalam fasirkeedu wax sahlan maaha. nabigeena sala allahu calayhi wasalam waxyaalo badan oo khawaariq ah oo caadada dilaaciyo oo mucjizaada ayaa la siiyey. وأكبر معجزة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، ومعجزاته كثيرة غرر، منها كلام الله معجز البشر وكيلها إبراهيم الغاني. ومعجزة مخلدة معجزة وارا يسوي إلى يوم القيامة وقت النبي الوسود الجيي iyo ilaa qiyaamaha sidaa unbay baaqi u noqonaysaa. ilaahay rasuulkaana keenay majliskan quruxda badan, faa'iidada badan, qur-aanka alle lagu qatimay, lagu soo bandhigay wixii kale oo madaaris ahaay oo kale oo cilmigii kale lagu soo bandhigay, hadduu naxwo ahaa iyo hadduu cilmu sharci ahaaba lagu soo bandhigay. nagala soo qayb galeen culimo badan. kowna uu ka yahay sheekhi likulli shayin lahaa sabab baa layidhi, wax kastaba sabab bay leeyihiin. sheekhan kutubta ama cilmiga akrinaya ama madarisadan iyo xafladan hadda soo bandhigay oo isku kaana yeeray sababtiisa, sheekhiisina uu iyo culimada la socotana ay ka soo qayb galeen. waan u mahadnaqayaa, dhammaan waa u mahadnaqayaa dadka ka soo qayb galay, xafladda ka soo qayb galay. shirmaadka uu ka yahay oo looga soo gudbay, dhanka kale looga soo gudbay iyo culimada la socoto waan u mahadnaqayaa. jazaakum allahu khayran baa le khayr allah idinku abaalmariyo. haddii waxaan leenahay qur-aankii ilaahay unoo qatimayno insha allahu tacaala mid labaad iyo mid saddexaad iyo tafsiir labaad iyo mid saddexaad insha allah kuwii isugu imaada qatinkooda allah naga dhigo. xafladahan ka ballaaran kuwii isugu imaada allaha cimri iyo nolol iyo waqti noo siiyo insha allahu tacaala. khayrun baan ilaahay ka rajaynaynaa, ilaahay inuu faa'iidadan iyo nimcadan noo sii ballaariyo baan ilaahay ka rajaynaynaa. intii ka soo qayb gashay inta u saciisay iyo inta sabab u ahayn ajir iyo xasanaad allah ka siiyo. ma sha Allah wax halka dhacay khayr baa ka dhacay, waan ku faraxno oo qaali ah ka dhacay. dad wax bartay oo cilmigii juhdi lagu bixiyay ayagana ka jawaabay baa ayaan aragnay. allah u ziyaadiyo juhdigan meel dheer ka soo jeedaa. waxaa oo meesha maqaanka ku sugan sheekhiisi sheekh mahad oo asagana samaradiisa ay ka mid tahay. juhdiguu uu bixin jiray uu ilaahay asagana iyo samaradiisa ilaahay soo gaarsiiyey. nacmo qaali ah oo fursad ilaahay nu siiyey. ilaahay dhammaan ha noo xifdiyo, dhammaan allah ha noo daayo.
maaragtay xagga naga khayr weyn allah uga jazeeyo marka aan dadaalno khayr allah siiyo sheekhiinina oo soo saaray oo juhdiga bixiyasana khayr allah ku jazeeyo juhdigiisa waa muuqdaa meel dalkiisa aad u muuqdaa markhaati baan ka nahay uu ka jawaabay asagana juhdi lagu bixiyey aad u mahadsan yahay ana insha allah waxaad ogaataan tafsiirka markaad dhammayseen oo qur-aanka aad dhammayseen magaca aad lahaydeen waad ka guurteene waxaad u guurteen magac kale darajadii aad lahaydeen waad ka tillaabsateene darajo kale aad ku biirteen darajo aad ku biirteen waa tee haddee waa kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala darajadii lagu xifdinayey baad maxaan ku urahdaa yaad ku biirteen ikhwaani marka nabiga calayhi salaatu wasalaam sayidunaa cali waxaa laga wariyey radia allaahu canhu in saxaabiga uu ahaday iyadoo qola daahayaan buu soo maray wuxuu yidhi saxaabigii ninkii soo maray oo saxaabigii u imaaday sayid cali ow sheekaa ka socotuu yidhi masjid sayid cali wuxuu yidhi amaa hooyaay inii samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam anu waxaan maqlay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ka hadlayo fitan inay dhici doonto alaa inahaa satakuunu fitnatun buu nabigu fitan baa dhici doontuu yidhi sayid cali baana ka warramayo waxaan idhi buu yidhi mal makhraju minha maxaa looga bixi yaa rasuul allah ilaahay nebigiisow nabigu ma oranin waxaa looga baxayaa reew fulaan lacag dukaan maryo cadcad sharaf caqli ma dhihin kitaabullah buu nabiga calayhi salaatu wasalaam ugu dambeyn munaasabadan ayaa ku soo dhammaatay jawi farxadeed duco iyo dardaaran diini ah taasi oo muujisay in macadu iimaan uu weli yahay il muhiim u ah kor u qaadidda wacyiga diimeed iyo dhismaha mustaqbalka jiilka muslimiinta ah